kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka halku dhig news qodobadaad ku daawan doontaan waxa kamid ah qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo ka bilowday Imaaraadka Carabta Kenya oo ka walaacsan loolanka Djibouti oo noqday mid ka adag sidii ay filaysay deni oo dacwad karan ah madaxda dawladda u gudbiyay beesha caalamka xilli uu shalay kulan la qaatay James Swan iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ku baaqay in xal loo helo qaxootiga adduunka haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 19 bisha December 12 sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowno dalka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta waxa ka bilowday qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kaasi oo la rabo inuu san dib ugu soo laaban hoggaanka dalka sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay inuu dalka Imaaraadka Carabta u joogo qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kaasi oo ku sheegay inuu yahay mid Farmaajo kooxdiisa lagaga badbaadinayo dalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay Faisal ayaa xusay inay la kulmi doonaan jaaliyadaha Soomaalida ee ku sugan Imaaraadka kuwaasi oo kala shiri doonaan sidii madaxweyne Farmaajo kooxdiisa ay uga badbaadin lahaayeen inay burburiyaan Soomaaliya loona dooran lahaa cid aan Somaliland cadow ku ahayn waa sida uu hadalka u dhigay qorshahan cusub ee uu shaaca ka qaaday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Cuud Somaliland ayaana waxaan cadeen inay wax ka og tahay dawladda Imaaraadka Carabta in kale oo dawladda Soomaaliya oo khilaaf kala dhaxeeyay xiriirka u dhaxeeya Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa aad u xumaa dhawaanahan waxaana la rumaysan yahay in dawladda Imaaraadka ay ka mid tahay dalal dooriya inuu soo laaban madaxweyne Farmaajo qarashna ku bixinaya xiriirka labada dal oo markii horeba ku xumaaday xiisada qaliijka kadib markii ay Soomaaliya ka diiday Sacuudiga iyo Imaaraadka inay xiriirka u jirto dawladda Qatar oo saaxiibo la ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ka sii dartay markii dawladda Soomaaliya ay 8 Abriil qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo Imaaraadku ay ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Muqdisho toddobaad kadib 15 Abriil 2018 dawladda Imaaraadka Carabta ayaa joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa lacagta ay qabsatay dawladda Soomaaliya tan iyo muddadaas ma jirin wax xiriir muuqda ah oo ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta markaana daawadayaal wadanka Kenya ayaa ka walaacsan loolanka Djibouti oo noqday mid ka adag sidii ay filaysay Kenya waa musharaxa rasmiga ah ee Midowga Afrika ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay hase yeeshee taasi Djibouti kama joojinaynin loolan adag u gasho kursigan Kenya waxay markii hore rumaysnayd inaysan Djibouti kala kulmi doonin loolan adag oo ay kursigan ahaan doonto bisha Juun ee sanadka soo socda 2020 marka ay dhacdo codbixinta hase yeeshee sida uu qoray wargeyska Business Daily Africa dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan oo bilihii dhawaay waday dawladda Djibouti ayaa taxliilayaasha siyaasadda ee Kenya ku dhaliyay tuhun ku saabsan in Djibouti ay isku haleynayso taageerada dalalka ugu saameynta badan golaha ammaanka Professor Kenyana oo taariikhda ka dhiga jaamacadda caalamiga ah ee Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in Shiinaha iyo Mareykanka ay yihiin laba dal oo si hoose u taageeraya dadaalada Djibouti dawladda Mareykanka wali ma aysan ku dhawaaqin go'aankeeda ku aadan cidda ay taageerayso Djibouti iyo Kenya waxaana la rumaysan yahay in Beijing iyo Washington ay kursiga ku fadhiisan karaan cidda ay doonaan ayuu yiri professorka oo intaas ku daray in talaabada noocaas ah ay ku imaan karto dalka juqraafi ahaan ay muhiim u arkaan falanqeeyaasha ayaa tilmaamay in saldhigga military ee China ay ku leedahay Djibouti oo calaamad u yahay cidda ah muhiimadda juqraafi ee Beijing Mareykanka iyo Faransa ayaa sidoo kale saldhigga military ku leedahay dalka Djibouti saddexdan dal ayaa ka mid ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka waxayna gebigoodana ka leeyihiin ahmiyadna u leh dalka Djibouti taasoo taageeradooda u weecin karto dalka Djibouti Kenya ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh dalalkan hase yeeshee uma lahan muhiimad la mid ah Djibouti warbixinta ayaa tiri haddii Kenya aysan ka hor codbixinta xaqiijin taageerada Mareykanka iyo China iyadoo Faransiiska uu taageerayo Djibouti waxay la kulmi doontaa lama filaan marka doorashadu dhacdo bisha Juun ee 2020 kumana filna oo kaliya taageerada Midowga Afrika daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen halku dhig news haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan